aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan oo ah xaflad qaran oo ay diyaariyeen maamul goboleedka galmudug madaxdiisa joogta gaalkacyo guud ahaan dhammaantiin waxaan idin celinayaa mahad waxaan idinla qaybsanayaa farxadda iyo soo dhoweynta caawo xamaasadaydu halka ay marayso waa farxaddii ugu badnayd taariikhda intaan garanayo ee aan soo maro waxyaabahan ku faraxsanahay ma aha soo dhoweyntiinna iyo qalbiyadiinna keliyeedka oo aan ka daalacanahayo meeshii ugu sarraysay inay marayso xamaasaddiinna iyo farxaddiinnu waxaa farxad noo wada ah inay xafladda ka soo wada qayb galeen dad Soomaaliyeed oo laga yaabo inay gobollo kala duwan ka yimaadeen gaar ahaan labada maamul ee galmudug iyo puntland labadaba dad ka socdaay ay ka soo qayb galeen aad iyo aad bay runtii taasuna u tahay arrin xusuudeeda mudan oo cid walba ka farxinaysa dadku intiisa badanna maysan aaminsanayn meeqaamka maanta gaalkacyo ay joogaan iyo tadawurka ay gaadheen labada maamul siday dadkooda u walaaleeyeen siday u heshiisiyeen iyo sida ay maanta isu kaashanayaan wax walbana ay ugu leeyihiin wada tashi iyo iskaalmaysi ay ugu leeyihiin ma la aaminsanayn ummadda Soomaaliyeed heerka inay gaadhsiisan tahay laakiin ha ogaato halka dadkii soo gaadhsiiyay arrinta alxamdulillah ilaahay baa u suurageliyay dadaalkoodii bayna ku gaadheen dhammaan waan ku faraxsanahay guud ahaanna waxaan u diraynaa salaan inta kadib waxaad ii soo jeediseen dalabaad baad ii soo jeediseen runtii aad iyo aad muhiim ah yaad soo jeediseen waxaa hadda arkahayay warqad aad soo qorteen oo uu yahay waa cafis iyo raaligelin wasar qalbi dhagax aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin arrintaa waxaan idiin sheegayaa walaalayaal waxaan ogahay dadkii Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay arrintan runtii ay dhaawac u geysatay qulubtooda iyo maskaxdooda inaad koow ka ahaydeen inaad shaqooyinkiinni joojiseen carruurtii guryaha lagaga soo tegay iyadoo albaabada dusha lagaga xidhay muddo asbuucana inaydaan hooyanin oo idaan arsanin oo idaan fadhiisanin oo cuntadu idinka digi weyday oo qaarkiin dhiig iyo sokorta ay ku kaceen oo ay ku sigatay xataa in qaab loo jiheeyaba dagaal laga gala arrintaa runtii xogtaa waan hayay dalabaadkiinna marka waxaad ogaanaysaan markii horeba waxaan aaminsanaa shacbiga gaalkacyo galmudug weliba gaar ahaan oo ahaa meeshii ay ciidamada nisa iga qabteen waxaan is leeyahay haddii ogaan lahaayeen dadka Soomaaliyeed halka wada jooga waxaan rabaa inaan si gaar ah qoys u xusaan rabaa anoo og Soomaali inay wada joogto in badanna ay live-ka ku jirto in badan telefishinada ay kala socoto haddana inaan si gaar ah u xuso waxaan aaminsanahay ma aha inaan qariyo waxaan aaminsanahay saacad haddii uu aniga ogaan lahaa meesha oo shacbiga saacad ay ogaan lahaayeen inta ay ka nooshaa 15 qof inaan laga qaadeen baan ogahay runtii waxaan ogahay inay ku nafwaayi lahaayeen inta aaga ka dhow inay ku wada nafwaayi lahaayeen si sharaf lana aanu wada dhiman lahayn runtii waxaan is leeyahay inaynu ogaanin khayr bay ahayd intaan khasaare ka weyn uusan dhicin natiijaduna guul bay ku dhammaatay okay arrimahan oo dhan runtii waa arrimo u baahan inta badan in maskaxda lagu hayo ehelka si uu isugu xidhan yahay walaaltinimada kalgacaylka iyo laxjaalada ka dhaxaysa cafiiskan aad iga dalabteen waa mid Soomaali weyn iyo xaaladeeda maaha mid gaalkacyo iyo galmudug cuqdad aan u qabay aan maaha uma qabin cuqdad waxaan u hayay kalgacayl iyo farxad waxaanu ahay ehel walaala oo Soomaalida kale oo dhammaanteed aan walaalanahay haddana wax si gaar ah walaalnimo aan weynaga sii dhaxaysa runtii arrimahaas oo dhan waa arrimo muhiim ah waxaan sii wadanayaa marka hawshaan hadda intan aad soo qorteen eedii soo qorteen cafis iyo raaligelin qalbi dhagax intaasoo kale haddii ay soo qori lahaayeen nimankii madaxda ka ahaa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intaasoo kale hadday soo qori lahaayeen waxba yeena ku hadline haddii ay gelin lahaayeen TV-ga qaranka oo inta ay gelin lahaayeen
وهلك قلب داخل قرنتها يا شعبك الصومالي دير هايين أما سيدي سووا جرين لهايين ومدن الصومالية ضمن حال بيكا الله إذا كنا حال بعد كا الله إذن أنا وحنا نقول لها قفك أوه رأيه أيق الله شقيا قاعد كسيا حلكي واجبات في شعبك الصومالي يقولون يعني نقول لها runtii aniga markaan si fiican u fiiriyo intaas wax weyn oo dhib badan ma ahayn in la fulin waayana waa karti daro inta in la fulin waxba yeeno ku hadlin inta haday kaliya qori waayaan yani waxa ku kala fikiray waa karti daro baynu yay noqon lahayd marraba qoladaas inaan la dagaalamo runtii mana qorsheysan inaan la dagaalamo hadda ka hor sababo badan awgood mar waxaan la dagaalami waayay shacbiga Soomaaliyeed oo guud ahaan meel uu joogay qadiyadaydi ka dhiidiyay oo ka dagaalamay sidii oo kale inkastoo meelii ugu xamaasada badnaa idinku aad ahaydeen anigoo shacbiga Soomaaliyeed tixgelinaya anigoo baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliyeed tixgelinaya mar haddii qadiyada meel looga soo wada jeesaday haddii la cadeeyay dambi iyo jariimo la galay oo taariikhiya in ahayd idinka aan idinku ixtiraamay inaan la dagaalamin qorshay ahayd oo marka koobaad idinka dartii maan ula dagaalami waayay waan la dagaalami karay laba saddex shakhsi oo xukunka haysa waan la dagaalami karay waan dacweyn karay anigoo ka duulaya go'aankii baarlamaanka artikel sharciga weeye oo ka dacweynaya dalku hadduu maxkamad dastuuriye leeyahayna ka dacweynaya hadduusan lahayna maxkamada caalamiga la tagaya waan dacweyn karay idinka dartiida kalgacaylkiina ayaan u daayay inaan la dagaalamo faraha uga qaado waxaan kaloo ayadana ii muuqatay haddaan hadda la dagaalamo iyaga dalkuna ciriiri iyo dagaal ku jiro cidii iyaga bedeli lahayd waqti intee leeg baa lagu diyaarin karaa dalku waa ciriiri ku jira waa figaysan yahay dalku dadkii dhaqdhaqaaq iyo soo socod ma leh xaalad walba waxay taagan tahay meeshii ugu liidatay arrinta saas oo kale waxaan haddii aad hadda iyaga la dagaalanto cidii iyaga bedeli lahayd waqtiga la heli karaa ma cadda midda kale dadka bedelaya waqti aad chance u haysataan oo soo xulan kartaan ma haysataan sidoo kale waxa ay muuqatay cid la keenaya laftigeedu ee degdeg aan u keenaynay inta ilag bay khayr qabayaal yihiin waxyaabahaas oo dhan baa ay muuqday ta kale anigoo muddo waqtigeygii oo dhan u soo dagaalamahayay dadka Soomaaliyeed inuu horo dawlad cadaalad oo xaq oo buuxisa himilada shacbiga ummadda Soomaaliyeed inaan hadana qayb kamid ah la dagaalamo oo ku soo caanbax inaa wax burburiyay taana waan ka xishoonay runtii in aynu maanta meeqaamka aynu joogno waynu u jeednaa waxaynu soo gaarnay meeqaam xadaarad iyo ilbaxnimo iyo aqoon ay dunida hagayso dadkeenuna uu si fiican runtii qodobadaas ugu fiican yahay aqoonteena way korortay mid maadiye mid diineedba xadaaradii iyo ummadnimadii wax walba way kordheen waxaan rajaynaynaa waxaynu taariikhdu ina baraysaa waxyaabihii ina soo maray ee inaga ina dhaawacay ee qarannimadii ummadda Soomaaliyeed dhaawacay ee gobol iyo caasimad iyo yaani miyi iyo magaalaba ina naafeeyay ee maanta meeshaan la ina dhigay asaaskiisa wuxuu ahaa laba qodob qodobka koobaad waxay ahayd gumaysayaal doonayay inay ummadda Soomaaliyeed burburiyaan dawlad dambe oo Soomaaliya ay leedahay oo khatar gelin karta ama raadin karta wax iyada ka maqan ummadeeda ama dawlad ama cadow waxeeda haysta aan mar dambe aan loogu talagalay inay khatar gelin ta kale waxa la inoo isticmaalahay wuxuu ahaa qabyaalad iyo gobolaysi buu ahaa waxa u sahlanaatay cadowgeenu inuu geed inuu kala xidho inuu gobol iyo qoys inoo sameeyo inuu yaani runtii ka faa'iideysto xoogageenni inuu isku jabiyo waynu aragnay jamhuuriyadda ummadda Soomaaliyeed halka maanta ay taalo halka waxayna dhigayna waa qabyaalad gobolada soo haray gobolada laftigoodii baa dhaqaaqila waxay la dhaqaaqilaayihiin waa qabyaalad iyo wax la mid ah ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysataa waxa asaas u ah waa qabiilka sidaa darteed mar hadda shayga taariikhdu ku bartay waayo aragnimadaadu inuu cadowgaaga yahay waxa haboon in aynu ka gudubno oo danteena iyo masaalixdeena ugu gudubno midnimo iyo walaalnimo dad walaalo ehelaan la wada yahay sidaa darteed dareenkeenu bacdama maalmihii dhawaato uu midoobay waxaan soo jeedinaynaa saaxiibo badan ay soo jeediyeen hadda ka hor aan wada qabnaana in aynu la dagaalano qabyaaladda inaan la dagaalano gobolaysiga inaan la dagaalano eexda iyo afmiishaarnimada inaan la dagaalano midabta koorka iyo kala sarreynta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha
iyadana inaan meesha ka saarno oo la dagaalano waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo siman oo qiyam iyo diin iyo dadnimo ku siman baynu nahay يعني إنك أو دلمان هذا قال إنك ميدا هذا نسيد دلمانا وعندما تجري وين سيد عذرتين إن أينو ومدين أورشنا سنان إيا عدالة إيا أو عن لهين غورسي يا كارسرين واحد إنه مش كسره فنتي تاسوا وحنشال هاي إن أينو آديات عن قوة دردار نقفل بو إنك ميدانا وأينو كشقي ما معناها عليه هاي أنا إسكتين قبيلته أنا إسكتين قبلايسك أنا إسكتين أفمن شهر ماذا يكلا جوجوينت معنا أنا دينا بري وأنا لا دجالنا والقبيلة أنا لا دجالنا أنا دينا معنا ما سمعناش هذا أنا قبيلة ده يقولوا كذا دحفله محن كسو كوري أمدي أنا يوم بأيسو حاس كذي وحلقة وعروتين عنده إسكت دايا درس كحكولا نقمين القبيلة دي فورهم لكن وحاميمة إن أنكو هقول قالوا إن الله دجالنا قبيلة إن ماشى كسرنا كلا سرين إن ماشى كسرنا إسبوع في أمد سوماليات ماشى إن كسرنا runtii taas waxaan rajaynaynaa inaynu u wada hawlgalno waliba jiilka soo karayo haday waxaan sidan ku sii socoto colaad halaagto ummadda oo dhan yaa iman doonto runtii waxaan ku faraxsanahay hawlgalkii hadda aan soo marnay oo ka soo bilownay jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ka soo bilownay Hargeysa dad Soomaaliyeed oo waxaan arkaynay waxaa loo maleyn jiray in Soomaalidu isnacab tahay yaa loo maleyn jiray waxaan halkaa ku soo aragnay dad Soomaaliyeed oo doonaya Soomaalinimo oo doonaya walaaltinimo oo diyaar u ah in la iscafiyo laakiin cuqdad dhibaatooyinkii dhacay wali aan si toos ah looga wada hadlin iyaguna waxay doonayeen intaas oo kale in la yiraahdo un bay doonayeen inta halkaa ku qoran cafis iyo raali gelin dadku oo dhan baa ku weeyay laakiin bacdama ayagu ay ahayd meelihii ugu darnaa diyaarada airportka Hargeysa ka kacday in airportka Hargeysa burburis altaleri iyo BM laga riday daafaha magaalada in lagu rido magaalada gudaheeda galmudug gaar ahaan gaalkacyo waa gurigeygii saadigu soo dhaweyseen aad baan ugu faraxsanahay waa ehelkeygii Soomaali oo dhammaan walaalanahay haddana walaalaan siinahay yaani waxa la yiraahdaa maama waxa jirtay la yiraahdo ninba waxa la walaalada waanteen markaasuu waa 15 وهجاج ولا الله ولا المكول هذا هي بالي معنى هذا محوية ولا الله ولا المكول هذا ولا الفهم أيه وحيته يعني ولا الله يبضنا يوصي ولا الكيها هذه أتبعنوك فرح سنة أنا نعاود نحكي هذه أتبعنوك علان لها إلى نتينا المدبضا إن هذا اللقاته هذه أتبعن رأى اللغة هاي رنتي إن نعاود إن أتبعنوك فرح سنة وحيد عي المدبضا كل رفادين عروري اللغة سوتجي شقدي اللغة داي خرج بدنه kaga baxay gaadiidu burburay waan idinka tacsiinaya cid u baahan in loo tacsiiyo oo leeyahay wixii dhacay ka raal lahaada waxaan la tashanin baa sameeyay idinka ku haboon in la idin yiraahdo wixii dhacay leena galma tashanin laakiin yaa mudan in laga raal geliyo waxay intaas in idinka la idinku soo qoro shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan gaalkacyo arrintan uu ka dhacday si gaar ah raali u ahaada in la yiraahdo yahay hadda anuguna waxaan leeyahay wixii aydan ogeyn dhaxdiina ka dhacay ee faldambiyeedka ahaa ana idinka tacsiinaya raali ka aad idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin